dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dekada weyn ee magaalada Mogadishu waxa ay kula wareegtay gargaar dowladda Turkiga ay Soomaaliya ugu deeqday. Muxidiin Macalin Cabdulle ayaa warkan inoo faahfaahinaya. markabkan oo siday 12,000 oo tan oo cunto ah ayaa ka yimid dowladda iyo shacabka dalka Turkiga waxaana loogu talagalay dadka Soomaaliyeed. wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa gargaarkan kala wareegtay mas'uuliyiin ka socday dowladda Turkiga iyo hay'adda bisha cas ee dalka Turkiga oo horkacayay safiirka dowladda Turkiga ee Soomaaliya. Olgan Begar safiirka dowladda Turkiga oo fadhiya Soomaaliya oo gudaha dekada Mogadishu warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay in gargaarkan ay ugu talagaleen shacabka Soomaaliyeed. We are very pleased to see the Turkish Aid ship here today. waxaan rabaa inaad maanta aragtaan markab Turkiga ka yimid oo ku soo xirtay dekada magaalada Mogadishu. waa markab sida 12,000 oo tan oo raashin ah oo ka yimid dalka Turkiga. tani waxay muujinaysaa calaamadii ugu dambeysay ee xiriirka walaaltinimo shacabka Turkiga iyo Soomaaliya. waxaan ku wareejinay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka. waxaa loogu talagalay raashinkan in la gaarsiiyo gobolada dalka ee abaaruhu ay ka jiraan si loo caawiyo dadka halkaasi ku nool. I think they will able to distribute this food to those in need and also to the regions. wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa sheegay in dowladdu si siman gargaarkan ay ugu qaybin doonto dadka Soomaaliyeed isagoo u mahad celiyay dowladda iyo shacabka dalka Turkiga. Dhamaantiin waxaad marxaati ka wadatiin maanta inaynu la taaganahay markabkii ay soo dirtay dowladda Turkiga oo uga mahad celinayna dowladda Turkiga iyo shacabka Turkiga. waa uga mahad celinayna safaaradda Turkiga oo safiirku waddanka Turkiga uu wakiil uga yahay hadda. iyo hay'adda bisha cas ee Turkiga oo iyadu raashinkan mas'uuliyadiisa lahayd. sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa shaqaalaha iyo kabtanka markabka. waxaan insha Allah rajaynaynaa raashinkan inuu gaari doono dhammaan dadka Soomaaliyeed intii uu gaari karo. wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyadoo wakiilka dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeedna halkan ayaan kaga guddoonay dowladda Turkiga iyo hay'addii keentay. waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda in la dejiyo ka bacdina loo qaybiyo dadka u baahan. gargaarkan ka yimid dowladda Turkiga ayaa yimid xilli wali ay muuqato saameynta fatahaadda webiga Shabeelle oo ku yeeshay dadka ku nool gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Muxidiin Macalin Cabdulle, SN TV, Mogadishu.